wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leed dhagaxya dab leeskuma dhifte kala dhowraay wax sidaa ka dhigan dhaqanka galmuduge iska dhowraay waryaa dhaqankeenna waxa ka sheegin dhur iyo dhaqan babeele war habaar iguma kartid horta dhaqanka qurxi mugaska kadib habaarkaagu socahaahe war ma dhowdhowdaasubaa ku jiraysaan haa dhowdhowdayna kuugu jira nawnawdaadaan dhegensannaahe dhulii abuur wal iska dhajiya dheefa ka dhaladaasa reer galmudug ow sidun is dhaama war 4 sano galmudug loogu tirgalay inuu madaxweynaha dhamaysto madaxweynihii saddexaad maanta la doortay eebago afaraadna haddaanu soo fooriha xaatiriheenhe waryaa doorashada maanta cadaada ka dhacday waa lala dhuuntay anigayna ahayd inay xildhibaanadu i doortaanoo mar hore aysi soo sharax midda saxdaana bishaan gudaheedaan gurceel ku qabanaynaha laga soo qayb galo maysiin lahaayeen lan usuba nafaqeen baahano malmalaatinoo la siifadaa halay doorta inta kale war arrinta galmudug waxay ka dhigan tahay adigoo dhagax joogoon dhibic haysan biyaa oon geedihii dhar lahayn oo dhulka siiga ka duushay mid kaloo dhagax joogoo dhaliya kuugu xigaana in la dhaansada diiday oo ceelashii dhabab saaray bal muxuu dheefahayaa mahallaysla dhintaa muxuu guri baa degay ununkuna waxaan horu dhahnay oo ay ka dhigantaa maanta dhawaaqa idinka soo yeeraaya dhagonlow dhaniin beel isha dhagax lagaa saar oo dhabbahaaga cawskooyo dhooman mira lagaa qaad ar uniina geega may reer dhibaata dhaha fadhiinad waxaan maqli jiray hadda ka hor nin alla caasi ah wuxuu yidhi waxba dhowrsan maynay rabbow dhagaxya soo daadi walaa dhagahaga la kahelaayo goomuluud ahaayeen nin yow warnimada warka iska daaye maanta waxaan maqlay in cadaado lagu doortay axmed baasto madaxweynaha loo doortaana la yidhi marka xaaf xagow aaday yaa minii baasta la doorta bariis iyo diirxaal lagu nacay war ninka baasta la yidhaa ee hadda la doortay ma jimca baastaalaydii ayuu dhashay maya sabdi cambuulaaleeyow dhashay warnimayo cadaada war aadnan ka hayn baan anuu ka hayaa wadaad la yidhaha shiikh buukaxa hadda ka hor wuxuu ku riyooday cadaada haddii lagu doorto madaxweyne aan reegaalkacyood ahayn dhibaataa ka dhacaysa dhulku inuu la gariirayna ka baqaya war dhulku inuu la gariiro ka biqi maayaane inay isdoortaan bay ka cabsanayaan aryaadhaha waxa wadaadku ku riyoodayow yidhi waa la laalayo beeshaan xaqayra lagama hadli karo waa heer dhuusa mareebeed ee cadaadayaan la nadin war adiguna cabdulow dadaan xaq lahayn baad xaq u raadisaaye qoladaad sheegayso xaqoodii wadaaddaa u hayo sanad kasta mid baa u soo baxa warniyo wadaadada soo reerta wasul maaha xaggee uga hadhayaan hala koole ha kula jirto oo ha kugu taagnaato abaa ka her lagaa waaye warnimayo qodbasiro lama rabee inta naga daysaan madaxweynaha maanta shaashka cadaada loogu saaray madaxweynihii sharciga ahaa oo galmudug axmed ducaale geellaxaaf tuutu gashadaa la yidhi ooqayay xaaba quruxa mugow tuutaha gashaday war geelahaaf runtiis way intii guulguula ka horeebta gentaalama ka horeebaso larayno tuuta galada hagan leeye war waa been boode dagaal uma socda ninkaas war haddaamiyuu qalaab tegaya war ha gafinine gaalkacyo wuu ka baxay madaxweynuhu garow ka degay adeer madaxweynaha sharciga ah waa midka nabad iyo nolol wadato war garow waxaa tegey waa madaxweynayaashii maamul goboleedyada shirkii ay ku barlameenaana ka furmaya meesha waare ma ahan inta kalena waa iskugu tegayaan waxaana laga filayaa inay ka soo baxaan go'aanno ay mar kale dawladda xiriirka ugu jarayaan ayaguna ay lugaha iskaga jarayaan marka niman yahow madaxaa la iska wada jarayaa bilaashaad meesha u fadhisiine array ninka madax ku yaal madaxa ha laga jara ma ewalaa madax nugu yiil warnimayo horta waxbaan ba hilmaamaye madaxda geedland maxay uga hadli weysaa 14 oktoobar oo shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqay soobe war madaxda Soomaalida awalan cambaareen ma ahan wax kale laga sugayn ayadina waa ka masquuleen anigu cambaareynta nafteeraanba cambaareeyaha ka warrama adiguna adaa cambaar leh ka waranay war garow waa lagu shiraa aad leedihiin ciidan gadoodsan qabsaday madaxtooyada Cabduligaas waxa ku shirayaaba soo madax gadoodsan maan ma gadood wax u dhiba ayaanta orax kula ilaa jiro garoor qabooba ilmuhu waa u baahan yihiin waraado Cabdulow hadhow ilmaha garoorta waa ka cabaysaaye yaa ka damina ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu yiraahday ciidan gadoodsan ayaa dili rabay anigana buusha bayaan saxiib badbaadiyay buu yiraahday aryaa ma buunsha ciidan celi karta runta leesuba sheego warnimaya war mahaytana gabalka lilay koonfur galbeed madaxweyne ha
nag ewaata koy ku dhaloy leeyi yaa kuwa kalena kurtoor ma xaaraana war ulmaadaalena gabto inku dhahgaloy warka xuseen cusmaan xuseen agaasimihii nabad sugidda madawiinaha koonfur galbeed teeganya widaay ay ka muduna lisii fadihe yaa kaale ow shariif iyo abow roobow intay ka baxeen ulmanimilon ogolaaday qilaawayaayaan aryaa qilaawaquud lagu heli maayo nimanka amaa la dooraha war culummada soomaaliyeed waxay cambaareeyeen ummaddana uga digeen xeerka wasaaradda haweenku soo diyaarisay aniguna xeerkaas anigoon culummo ahayn baan ka carooday anigu xeerkaas waxaanba ku nacay markii la yidhi 18 sano ayaa lagu qaangaara yaa ciddiinnu hadday 18 ku qaangaarto ununku 15 aan ku qaangaarnaa war anugu xeerkaas waxaan ku nacay waxay yidhahdeen adiga xaaskaaga haddii muran idin dhex galo waxaad ka doontaa waa kufs muqaalife giilin weelan fadaayan war cabdi ilay nimanyan waxaa la yidhahday xabsiga isagoo ka fakan rabaa la arkay uga faka waaya dhilqaa eber uga dhigtay war wuxuu yidhi dad waalan baa layla xiray war isagaa dadka hore u waala cabdi ilay war sacuudigu way qirteen dilka weriyihii jamaal khashuuqi weriyihii carbeed maalintuu cadowga soo aaday cadcad bay u goosteen hilbaha wiilashii cunay war saas maana waxay dhaheen qad maata war dawladdu markii weriila dila way cambaaray jirtay hadda waata sacuudiga taageertay mar kale wax cambaaray mees amulena waraa dad waaweyn baa tihiine cambaaro cadud ma celisay naga hortaga maadaa diidi kala cambaarayta wariyaha weriyaasha in la qasho waa sharciga tiri dawlad war adeer somalilan haddaan waxaan sheegsan shurman alkol iga tag abaare tage